Awards, the organizers, all the guests, and everyone watching. A special welcome to all of you. Tonight is a big night for all of us. I wanted to say congratulations to all nominees. Let's enjoy this night and celebrate our East African music. xalay waxaa loo boqoray the King of East Africa, ninkii dowladda Kenya, dowladda Soomaaliya iyo weliba fanaaniin kale caalami ah oo reer Afrika ah oo wadamo badan ka soo jeeda ayaa xalay awardkii siiyay inuu yahay heesaagii ugu wanaagsanaa geeska Afrika 2025-2024. xalfad weyn ayaa ka dhacday magaalada Nairobi. xalfadan waxaa joogay safiirka dowladda Soomaaliya u qaabilsan Kenya, Ambassador Jibril Ibrahim Abdulle. waxaa jooga halkan xildhibaano ka tirsan dowladda Kenya oo ka mid yahay mudane Faarax Macalin Dawaara. waxaa joogay ganacsato caan ka ah Kenya, waxaa joogay fanaaniin caan ka ah Kenya iyo guud ahaanba East Africa. taageerayaasha Dayaxdan Nuurshe xalay waxay yiraahdeen waan daynay inaan ku doodno. Dayaxdan Nuurshe waa King of Muqdisho, King of East Africa ayuu u gudbay. Muqdisho oo kaligeed ma aha, wuxuu king u yahay Nairobi, wuxuu king u yahay Addis Ababa, wuxuu king u yahay Asmara, wuxuu king u yahay Uganda, wuxuu king u yahay Tanzania, wuxuu king u yahay wadamo kale oo Afrikaan ah. East Africa waa wadamo aad u tiro badan. Alfanaan Dayaxdan Nuurshe English ayuu ku hadlay. qoraal uu soo qortay English, ninka haddii as leedahay waa nin jaahil ah oo waxba aan baran. halkan waxaa ka soo cadaatay in Dayaxdan Nuurshe ugu yaraan English uu wax ka fahamsan yahay. Awards, the organizers, all the guests, and everyone watching. A special welcome to all of you. Tonight is a big night for all of us. I wanted to say congratulations to all nominees. Let's enjoy this night and celebrate our East African music. Thank you very much. ninkaas u jeedaan waa alfanaan Dayaxdan Nuurshe, the King of City. haddii aad ku ogeed ninkii xalay waxaa loo boqoray the King of East Africa. aan kugu celiyo, Dayaxdan Nuurshe haddii aad ku ogeed the King of City, xalay waxaa loo boqoray the King of East Africa. ninkii dowladda Kenya, dowladda Soomaaliya iyo weliba fanaaniin kale caalami ah oo reer Afrika ah oo wadamo badan ka soo jeeda ayaa xalay awardkii siiyay inuu yahay heesaagii ugu wanaagsanaa geeska Afrika 2025-2024. xalfad weyn ayaa ka dhacday magaalada Nairobi. xalfadan waxaa joogay safiirka dowladda Soomaaliya u qaabilsan Kenya, Ambassador Jibril Ibrahim Abdulle. waxaa jooga halkan xildhibaano ka tirsan dowladda Kenya oo ka mid yahay mudane Faarax Macalin Dawaara. waxaa joogay ganacsato caan ka ah Kenya, waxaa joogay fanaaniin caan ka ah Kenya iyo guud ahaanba East Africa. waxaana tartan culus oo dhacay kadib Dayaxdan Nuurshe safiirka dowladda Soomaaliya iyo xildhibaan Faarax Macalin Dawaara ay u boqoreen inuu yahay King of East Africa. King of East Africa ayaa loo boqoray ninka ahaa Dayaxdan Nuurshe. dayax cimaamadiisa lama haysan karo. Dayaxdan Nuurshe waa fanaan runtii dad badan aad u taageersan yihiin. taageerayaasha Dayaxdan Nuurshe marka maxay bilaabeen xalay aan rabaa inaan dul istaago. taageerayaasha Dayaxdan Nuurshe xalay waxay yiraahdeen waan daynay inaan ku doodno. Dayaxdan Nuurshe waa King of Muqdisho, King of East Africa ayuu u gudbay. Muqdisho oo kaligeed ma aha, wuxuu king u yahay Nairobi, wuxuu king u yahay Addis Ababa, wuxuu king u yahay Asmara, wuxuu king u yahay Uganda, wuxuu king u yahay Tanzania, wuxuu king u yahay wadamo kale oo Afrikaan ah. East Africa waa wadamo aad u tiro badan. Alfanaan Dayaxdan Nuurshe English ayuu ku hadlay. qoraal uu soo qortay English, ninka haddii as leedahay waa nin jaahil ah oo waxba aan baran. halkan waxaa ka soo cadaatay in Dayaxdan Nuurshe ugu yaraan English uu wax ka fahamsan yahay, uuna mahad celiyay, uuna sheegay in biladan la siiyay uu aad ugu faraxsan yahay, uuna hore u sii socon doono oo uusan joojin doonin. fanaan Dayaxdan Nuurshe ayaa ka mid ah fanaaniinta ugu saameynta badan xilligan Soomaaliya. 2 maalin ka hor ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Nairobi, caasimadda waddanka Kenya,
isla markaana dayax ayaa loo maleynayay in baashaalkiisii iyo wixiisii caadiga ahaa ee Nairobi uu ka watay uu iska aaday, laakiin waxaa muuqata in dayax uu hoosta ka soo geliyay dad badan oo taageerayaashiisa ah biladan qaaliga ah ee uu ku guuleystay. dayax danuurshe oo ah fanaan Soomaaliyeed oo la yaqaano ayaa dad badan ay ku qeexaan inuu yahay fanaan qoyar socda, dhawaanahan wuxuu u batay dhinaca iyo waliba ganacsiga oo waa nin ganacsada ah, Ilaaha u barkeeyo. biladan uu helay iyo tii maalin dhaweyd la siiyay ninkii ah Saalax Sanaag maxay ku kala duwan yihiin? waa waxyaabaha dadku ay isweydiinayaan. waxba kuma kala duwana, laakiin waxay isdhaamaan heerka ama levelada la kala bixinayo ayaa kala fog. oo fanaaniinta laba fanaan ayaa Soomaaliya u tartamayay, Soomaaliya marka loo fiiriyo biladii East Africa wuxuu ahaa Saalax Sanaag iyo Maxamed Maame. waa tii Saalax Sanaag uu ku guuleystay, tan laakiin dayax qofku la tartamaya ma laha. dayax waa loo yeeray, waa la casuumay, waxaana lagu yiri no imow oo kaalay biladan qaado. taasi oo iyaduna ku tusaysa inay tahay arrin kale oo muhiim ah, isla markaana dayax meel cidla uu ka qaatay biladan. magaalada Nairobi xalay waxay u kala xirneed ninka ahaa dayax danuurshe. magaalada Nairobi mas'uuliyiintii dowladda Soomaaliya ka socday, mas'uuliyiintii dowladda Kenya ka socday, dadkii Soomaaliyeed ee meesha joogay reer Kenya guud ahaanba dayax ayaa xalay loo boqray, isla markaana la qiray inuu yahay fanaan bannaan degay oo cid ka hadli karta xaaladiisa aysan jirin. isla markaana dayax danuurshe ayaa loo arkayay markasta inuu yahay nin hamiga uu ka leeyahay fanka ka dhabeeyay. dayax waa ciyaal xamar. dayax fanka cabaar buu ku jiray sanado aad u badan. waa dadka levelka hoose kasoo bilaabay, nolosha noocyadeeda kala duwan sheegay inuu soo maray. waa nin dhalinyaro ah runtii. biladaas ayaa xalay fanaanka la guddoonsiiyey, dowladaha Kenya iyo Soomaaliyana marqaati ayay ka noqdeen. dayax danuurshe ayaana sidaa ku ah fanaanka East Africa. marka qof Soomaali laga hadlayo waa boqorka East Africa ayuu ku matalaa Soomaali oo dhan. fanaan dayax danuurshe biladan uu qaatay bil ka hor ayaa la sii saadaalinayay inuu isagu qaadanayo, laakiin way ka duwan tahay biladii uu qaatay Saalax Sanaag oo tan ayaa ka sareysa sida muuqata. isla tii Saalax Sanaag iyo Maxamed Maame ay ku tartamayeenna isaga garsoor ka ahaa, oo qofka saxda ah ee ku habboon ama qofka saxda ah ee isagu u qalma saxiixiisa ayaa lagu bixiyay. marka dayax the king of East Africa ayaa loo boqray. haddii aad ku ogeed the king of Mogadisho wuu ka gudbay dayax danuurshe, the king of East Africa ayuu maraya. muuqaalkan halkaas ayaan kusoo koobayaa. waan kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan. mahadsanideen.